السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو وناكسنا قيارتها هودينا قداوانيساي هالكاني waa TV-ga Soomaaliweyn oo toddobaadkiiba hal mar aad ka daawataan magaalada Yataboori iyo nawaaxigeeda adinkoo naga daawan kara obna kanaal inta kale caalamkana waxay nagala socon karaan hawada internetka oo ciwaankeenu yahay www.somaliweyn.com akhyaarta aynu jecelnahayo sida caadada barnaamijyadeena caawa aan idin hayno waxa ugu horeyn doona aayadaha quraanka kariimka ah waxa inoo raaci doona darsigii diiniga ah sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa barnaamijyo kale oo aad u xiiso badan oo ilaado mar kale iyo TV-ga Soomaaliweyn haatana aayadaha quraanka kariimka بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا wuxuu ka qalin jibiyay 1981 uu ka qalin jibiyay xasan sheekh maxamuud waxaan aqaanaa aqoontiisa ilaa maalintii uu dhiganayay dugsiga hoose ilaa dugsiga sare wuxuu ahaa nin tacliinta aad ugu wanaagsan fasalada dugsiga farsamada Scola Industriale waqtiyadaas uu dhigi jiray marka la galayo oo sideedaadka laga baxo oo iskuulaadka dugsiga sare farsamada ama dugsiga beeraha la raadsanayo waxa raadsan jiray kaliya dadka galaaska ugu dhibco badan marka taas waxay ku tusinaysaa sideedaadkiisii markuu ka baxay iskoolka xamar iskoola bintuun oo ka baxay inuu buundo fiican ka watay taasaan u suurtagelisay inuu Scola Industriale galo halkaasna uu dugsigiisa sare ku dhammaysto jaamacadda markuu ka qalin jibiyay 1981 sidoo kale wuxuu ahaa dadka waxbarashada ugu fiican jaamacadda kooxdiisii ugu fiican nasiib wuxuu helay inuu jaamacadda ku haro oo loo qaato inuu ka noqdo jaamacadda macallin inuu ka noqdo sideedameedii horaanteedii isagoo macallin ah oo ka shaqeynayo iskoolka kulliyadda farsamada ama polytechnic loo yaqaano wuxuu ahaa nin ganacsado ah oo shaqaysto oo ganacsi xalaal ah xamar gudaheeda ku haysta ayuu ahaa 1988 wuxuu jaanis u helay in uu helo waxbarasho tacliin sare inuu helo ee dowladda Soomaaliya siiso oo dalka India uu aado halkaas wuxuu ku soo diyaariyay shahaadada master degree-ga loo yaqaano takhasus ayuu ku soo suubiyay waxay ku soo beerantay xilliga uu diyaar yahay inuu dalka u shaqeeyo dalka ku sugan xaalad burbur ah sagaashameeyay markuu dalka ku soo noqday dowlad kama jirin markaa wuxuu ka howlgalay hay'adaha United Nations-ka ee waqtiga xamar ka shaqeynayay wuxuu noqday sarkaal sare ama madax wuxuu ka noqday hay'adda loo yaqaano UNICEF wuxuu haystay gobolada koonfureed iyo gobolada dhexe ayuu madax ka ahaa dhinaca tacliinta ayuu had iyo jeer isaga xoogga saari jiray wuxuu kaloo maaragtay uu ahaa xubin firfircoon oo ka shaqayso ururada bulshada civil society-ga waqtigan dagaalka uu ka jiray xamar ninkii garanay wuxuu ahaa dad xubnaha firfircoon oo dadka isku soo jiido muxuu ahaa dadka wacyigeliyo nabadda u ololeeyo ayuu ahaa jiray maaragtay 1999 wuxuu ku guuleystay inuu aasaaso machad loo yaqaano machadka maamulka iyo maaraynta dhigtaan arday aad u tiro badan dhowr kun oo arday ay dhigtaan ayuu agaabulay hormuudna uu ka noqday madaxna uu ka noqday markii dambena macadkaas wuxuu isku bedelay maanta waa jaamacad ay dhigtaan arday aad u tiro badan professor xasan sheekh maxamuud wuxuu ka mid ahaa dad marti ah oo dowladda Suudaan ay ku casuuntay waddanka 2009
بروفيسورات الجامعة الصومالية مدحنا كهردن أي عزومي جامعة ستوكهولم كنت كونتيهو اللي قادو أي عزومتي وحكم ذلك النصيب وهلي إنه ستوكهولم يمادو وشركة كذا قالوا وحول كل ما أرضي صوماليا كسر بعضي معهد كيس كسر بعضي ومارك قحوتي أيضا كلكم بين مرة حلقية وين تمرقوا ضدكم كسر ذلك وصوبري إن ذلك كسر بحين مرة حلقية وين تهاي فائدة ومارك ذلك أقوى تهرب في عن سوق هرسية مركي ماذا ودبنا نحرمري إن مارك تعليم تودا ماشي كسي ودان وتعليم سريع جاران بدنا ذلك ودا مارك يتبقوا النظام وحنا ترى الشيخ محمود وحقبت كيسي لبات المعامل كرو وحب دريمين إن مدام السيفل سوسايتي وكشغيني يعني ما أقول شذا إن استبدل الصومالي عن وصل كبير الكريم سيفل سوسايتي مدام يسن أود قعنته الكجرين وحب اللامي إنه أبابلو لبات يكون يوم كوي تغنكي وهو أبابلو حزب اللي يغامر حزب النبضة يهربريتا سبب دم يسوع كجراها إنه هو أود وهلو مرحبا أود هلو في سنة إنه وضع يسبدل سودونا حزبي جيس النبض يوربرنتا وكم حزبيه هو وين محافظ صومالي كجيرو مستقبل كان لغيابه إنه نظام حزبيه ما عرفت وضع كوكاميو وحكو حرن دليران بدن وجامعة دكتور أباب الكاسة الكجري مدد دمبه ونصيبه علي بشيء أغسطس قبل يكون لغاية توانكا إنه نقضي اللبان برلمان كترسن ما تنعاو حفلة المقابلين تغيير حصير إنه كل يستي مدحوين لماذا ترك صوماليا تاريخ إساس دير حسن الشيخ محمود بروفيسور حسن الشيخ محمود وحلقة قرأ كلامين حمر كنولا دور بنباتن سنة وأنا مرنا كتير بين دقائق سوكية أما تاريخ إساس لقيه لكن وحمد مدو أي اعتبار كتطلق كولية هاي يدن مديسة أقول أنت وانين معركتي وأقلاد بدن وصومالي لماذا جعل وانين معركتي دلقات بدن نلشي إذا معنا نارك حشي محمود وحريسن أما قف معركتي محاولة دقالسن كنا أنت صومالي محلية إمانتا إله أود له سيئي فرصة إن هلان مدحوين الداعادة اليراء أقوم له صومالي أسمن وأن قبيلة محاولة أنا أقوم مركا وحلوبة يا شعبي الصومالي بيلكستي جوان إن قرب سيان إن قرب استاغان إن إنسان قبيل وهيلين إن إنسان قبيلكم عارضين إن حالك هنا يا شباب إذا كنت جستا وأن السنة هاي إنه كم دي هيدا بكساري كرو خديه وهلا طاقيرة الشعبية مركا عاو حقا وحنوفر لنا غير التبوري هدان هاي إن طاقيرة دي نبوحدة سينو بروفيسور حسن الشيخ محمود سيو وقوليستو لباتوين كمان تصواري كجرا السلام عليكم هذه المؤسسة ورابطين عبد الله محمد أحمد حقيقي لما كوبي كرسول أسوأ شيء وحنا أنا وهذا الماجعين كمانتين وحن تغير وحن سيرنا بروفيسور حسن الشيخ محمود السجل يمامل كوبيسي تونو يدمان برلمان كي كوكرب سي إني يكوش أسكنان حقيقي كمانتي تتكوس كودنا والبرلمان كتير شيء حتى هذا هو كفر مركزي وكل واحد هو هم كان هو هم لينا حقيقي دنيا برلمانك بروفيسور جواري وحسيدو كل هو هم لينا هذا هم مدحوينين هو سيده حشمده iyo sharafta ku jirto ku wareejiyay maamul barlamaanka waxaan leenahay madaxweyne sheekh بروفيسور sheekh حسن محمود soo dhawow maanta nasiibkaaga ayaa meel noqotay in hoggaanka waddanka qabato waana ognahay in mas'uuliyad culus ay ku sugayso laakiin waxaan muujinaynaa haddaan Soomaalida iyo joogta nahay inaan kula garab taaganahay jiil iyo hoob wax walba maarta dhinaca dhaqaale dhinaca maskaxda dhinaca aqoonta waddanka inaad dib ugu celin karto marka insha Allah adigana mas'uuliyadaas qabatay ilaahay kula garab galaaleenahay waxaan rabaa marka waa badan yahay liiska halkan noo yaalo inaan farxadda wada wadaagno insha Allah سراكيش هورا ماشي جوكتا عقاشي يا جوكتا شوقي يا جوكتا أبويانا دي دليرة دي يا جوكتا هو يمكنني أن لقب مارما لقب عاوي
نعمه هذا يمكن معرفة sidoo kale walaaladii kale oo barnaamijka cabitaanada iyo qaybta weyn ka gaarsiisay magacyo laba koobi karo waa maaragtay taariikhdan xusi doonto walaaladii kale oo qabanqaabada waqti badan geliyay barnaamijka inuu hagaago hebel iyo hebel haddii magac laga tago ujeedadii qasad kale ma aha dhammaantiin wanaagga qabateen ilaahay ajir xasanaada naga siiyo waxaan rabaa marka inaan kelmadii halkan uga aadaneyd aan ugu yeero imaamkeenii magaalada sheekh cabdirashiid كلمات دردارنا يسكت دوننا نوبة قصص إن شاء الله فيها فريق مستعجل إن لهرو مر سومالي دي مسدات الإسلام كان أستانو نبض وحبضان يسبدل بدن ودعاء تاريخ دي وحرب سورة قليل أساقي إن كلو ولا لا شقي إن أنحنا مانتا أستانتي إسلام كمجال دي تقوليني كتاعن تربانتي وهو حسالنين في قدوم دي بدن وكل حير معانتي سكحنا شدي سومال لمدينة مركز كلمة جوجا هذا الحفلة دان خلي تطلع بشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. runtii imaantankeyga meeshaan maaha keliya inaan xaflad ka soo qayb galay laakiin waxay ii dhigan tahay waxaan u imid inaan baayaco imaamka muslimiinta Soomaaliya marka ilaahay markhaati inuu ka noqdo adinkana reer Youtuberi inaan markhaati ka tihiin imaamka muslimiinta inaan gacantiisa geliyay waxaan leeyahay waan ku garab taaganahay waan kula shaqaynaya khayrka lagu hogaami diinta lagu hogaami marka waxaan rabaa imaam la yiraahdo cali almawardi inaan xoogaha ka soo qaato hadalkiisa imaamkaasi wuxuu alifay buug la yiraahdo الأحكام السلطانية بوجا سيد وعام يهي مجال في سمك الله في ريو حاجة حكم كائي وحس كشكاية سياسة ومرجع وين مركو تعريفنا وحلوية قالوا الإمامة العظمى أم الخلافة مركو تعريفنا وغيري الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا وعقدها لمن يعمل بها واجب بالإجماع اتصح وين شرحه دين حوائد القاضي وكاسوان كبحياة الشعب كو وحيري إمامه ويعني خلافته واحد تحير الموضوعة وحاله السميوري هدف كيري شقدي واحد تعي لخلافة النبوة بوسكي النبي لماذا والنبي صلى الله عليه وسلم إنه هاي وهجانكي ومدى وهجامين هاي أيو بوس كاسو قسم يالي بوسيشن كاسو سعودنا إلى ما أنت القيام خلافة الإسلام وسعود الطاعة وحجر حديث والنبي صلى الله عليه وسلم وكلية هاي أهل معها إسلام كويل حرقها إسلام كا وفرفر من دومنان يوري بدو مسلمين تمكن ضعيفان وحاول رجل حرق إسلام كأنه كفرمه خلافته حكمك أي إسلام كي أي إسرائيل وحاول تنبيه حرق ودنبيه فرم الدور وحيري وصلاة ولا تقولي مركا مدحتويري هدي خلافتي لواري أو صلاة نلقته إسلام واقع ماضي إسلام كلمة marka wuxuu leeyahay waxa loo sameeyay wari positionka nabiga inuu qabto ninka khaliifka laakiin xogaha waxa laga yaabaa inaan niraan ولكن يا قوم كان بوسا النبي صلى الله عليه وسلم معصومك
marka xogaha inuu jilciyo rabaa wuxuu yiri wadiifadiisa ama shaqadiisa waa lagu yiri kow lixiraasati diinka inuu ilaaliyo labo wa siyaasati dunya iyo adduunyada inuu siyaasadeeyo oo dadka danahooda ee adduunyada iyo diinta inuu isku hayo wuxuu yiri waa caqduha imaamnimadaasi in la sameeyo oo muslimiinta ay ku midoobaan hal qof ay ka wada dambeeyaan si positionkaasi loogu shaqeeyo wuxuu yiri waajibun cala al-ijmaac marka muslimiinta dhan way isku raacsiin culimadoodii inay waajib tahay waa farad inaga maqnaa dhowr iyo 20 sanadood marka faradkaas aan dayacnay ee dembigiisa Allah inaga dhaafo hambaliyo dembigaas maanta inaan ka gudubnay kow Soomaaliya taana kulligeena dembigeena saaran maxay faradkaas uu maqnaa faradka khilaafada guud ah wuxuu maqan yahay 9 sanadood waayo sultaan Cabdilxamiid labaad waa sultaankii ugu dambeeyay ee Uthmaniyiinta Turkiya markii laga riday Bosra ee khaliifnimada waxay ahayd 1921 waxa ka soo wareegatay ku dhawaad 9 sanadood taas waxay u taala ummadda islaamka oo dhan China ilaa iyo Russia markaas ay joogaan muslimiinta u taala inay soo celiyaan laakiin shacabka Soomaaliya haddaan nahay imaamkii muslimiinta ee positionkaas haan lahaa waxaan dayacnay 22 sanadood marka hambaliyo annaga inoo tahay dembigaas inaan ka baxnay iyo hambaliyo waxay u tahay dawladaha dariska ee dadweynaha dhibaatadeena haddaan dhibaato ku haynay culeyskaas maanta uu ka degayaa insha Allah waxaan noqon doonaa maanta laga bilaabo haddii Ilaahay ma noqon doono dad dawrsada oo gacan hooseeya balse waxaan noqon doonaa dad gacan sareeya ay noqon doonaa dawladaha kale wax la qabsada ma aha dad dawladaha kale bariyoodan u raadsada marka xogaa waxaan rabaa soo koobo waajibka inaga saaran ninkan imaamka oo la doortay waajibka inaga saaran muxuu yahay kow horta in bay'ad la siiyo bay'adaas qasama dadku hortiisa la yiraahdo in lagu yiraahdo laakiin taageeradaada haddaad u muujisid bay'ad waad siisay waa sunno soo jiri jirtay nabiga ayaa bay'ad bixiyay asxaabtiisa bay'ad qaadi jireen waa sunno soo socotay marka bay'ada xataa adiga caruurtaadii inaad intaad fariisataan inaad tirahdaan annaga haddaan nahay qoyskaas waxaan baayacnay imaamkaas saas ay la yiraahdo baashaas haddaan nahay waa baayacnay inaad tirahdaan marka arrintaas aad ay muhiim u tahay waxay leedahay simbool oo midnimo ah awood quwad ayaa ku jirto labo waxaan baahanahay Soomaalida wajigeeda cusub inaan dadka kula dhaqano Soomaalida waxa in badan la tusay dhinaceeda dhibaataysan oo liita ayaa la tusay dad badan ayaa Soomaaliya ducfigeeda ku qaraabanaya marxaladan wayna dhamaataa Soomaali waxaan nahay oo caafimaadkoodu soo ceshaday oo adduunka qayb muhiim ah ka ah saddexaad inaan ka muujino waddaninimadeena waddamadan aan ku noolnahay dad muslimiin ah dhowrsan inaan noqono oo dadaalaya dad Soomaali ah oo waddanka ilaaliya oo wax ku soo biiraya oo dhalinyaradoodii ka warhaya iyo bulshadooda aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum
dhiirigelinta iyo garab istaagga madaxweynaheena cusub Professor Xasan Sheekh Maxamuud halkeedii nooga sii socon doonta. waxaan soo dhaweynaynaa maama Sacdiye Soomaali oo timid barnaamijka kaalintii ugu aadanaydna qaadan doonta. sidoo kale saxuufiyadeena أنفع سورة لنا أيضا حريقتهم إن شاء الله برنامج قيمي سبدا لكن سورة لنا هدي ولا ينادو وحن جعلنا مركين أنه يروح هذا النقاس وقف جلسنا برنامج قيمي شيء غيمي مقالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلاة الله وسلامه على حبيبه وخليله وخيرته من خلقه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه وبعد. ولا ريال وعما هذا ربك سبحانه وتعالى نوصل توكلي عمل كان يهوشان أن نشكوها إنه إن نكون وجنه فرح يا سرور يا حمدي كو أن أصيغ أمها النظر إنه ربك نوصل توكلي يا مهند kadib waxaa mahadle walaalihii hawshaan soo agaasimay ee waqtigooda iyo waxdheefkooda xoogooda iyo xigmadooda isugu geeyey ee ilaahay uu sababta uga dhigay inay isku tagashaan mahadle rag iyo dumarba. waxaa mahadle inta kasoo qayb gashay shucuurkan meesha lagu haayo in la isla qaato si muwaadinnimo ah, soomaalinimo ah, islaamnimo ah kuwa ayaa mahadle. intaa kadib waxaan rabaa inaan kalimaadka oo kooban meesha ka yidhaahdo. awalaba qabla kulli shay waxaan ku hormarayaa wax lagu bilowdo waxa u khayrka badan kelimadayda. anigu warka bilaabi maayo hortee la bilaabay laakiin wax la bilaabo wax u khayr badan anigu warkayga ku bilaabahaya. ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala bacda acuudu billahi min ashaytaani rajiim wajacalnaahum a'immatan yahduuna biamrina وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صدق الله العظيم. أبيض الكيسين ولا غيال سنة إلهي أو نحدقي أونك ويفربضنتها وإليهم دغنا فربضن يبروبتس لغوية دانو وحيالها نفلها إليه بذكره waxaa ka mid ah waxyaalaha naflahu ay iska leeyihiin inay yeeshaan wax la yidhaaho leadership qiyaado inay yeeshaan. waxaa waaye a unique property waa wasfi curad ah oo ay iska leeyihiin naflaha bani aadamka ah. sidaa darteed ilaahay wuxuu leeyahay likulli qowmin haadin, ummad walba ilaahay wuxuu u yeelay hanuun. xataa nafluhu kale way yeelan karaan hoggaan laakiin quality ugu fiican ee wax dheefka ugu fiican ugu gaara kan bini aadamka ilaahay uu sii waay subxaanahu wa tacaala. idan qiyaadada ayada ah maxaa laga rabaa? waa amaana, waa wadeecad waaye ilaahay isku ergaday qofka markaa u dhiibay ama kooxda markaa uu ilaahay u dhiibay amaanada. waa inay sida ugu wanaagsan ay uga soo baxaan. ilaahay wuxuu leeyahay wajacalnaahum a'immatan yahduuna biamrina. waxaynu ka yeelnay hogaamiyeyaal baana ayaan ka yeelnay yahduuna biamrina ku hogaaminaayo ummadda, inspiration ku siinaayo, ku horkacaayo ummadda biamrina anuka sidaan rabno taladayna. ilaah asaas lahay subxaanahu wa tacaala. wawxaynaa ilayhim ficla alkhayraat, waxaan u waxyoonnay inay samaha sameeyaan wixii sama ah oo wanaagsan ka shaqayntooda. sidaa darteed walaalayaal anigu warkayga wuxuu ka koobnaan doonaa ilaa iyo 5 qaybood. qaybta koowaad waxay tahay madaxweynahayna cusub Professor Xasan Sheekh Maxamuud taageeradiisa iyo duceyntiisa ka koobnaanaysa. qaybta labaad waxay ka koobnaanaysaa
madaxweynaha maanta noo joogo kii ka horreeyey oo sheekh shariif sheekh axmed ah inaynu u hambaliyeyno oon u ducayno ku ammaano dowrkiisii ka koobnaa doonta بارك الله فيكم waxay ka koobnaanaysaa wasiya dardaaran iyo duco aan ugu talagalay madaxweynaha cusub waxay ka koobnaan doontaa dardaaran aan u kala soo dardaarmayna marka insha Allah ummadda Soomaaliyeed caamatan gaar ahaan heer iswiida haddaan nahay dowrka nooga aadan dalka Soomaaliyeed iyo hoggaanka cusub waxaan ku hormarayaa yani taageerada madaxweynaha cusub waa taageersan waan ayidayna laakiin waxaan baliyayna wax loogu hambaliyay meesha kuma hayo waagadan waxba qaban kiila loo dhiibay durwaaya lamadiisa loo dhiibay waa garan kartaan in hoggaan la naqdo sideeday ugu badan tahay gaar ahaan waxa hoggaanka loo naqayo naftooda in la iska warsado muhiim waay Soomaali waay Soomaa marka waxaan leenahay horta koow kuwa hambalyeynayna waxaan ku leenahay Allah kuu safir hawsha idinkana aamin ida waxaan leenahay hoggaanka cusub oo professor Xasan Sheekh Maxamuud Ilaahay inoogu dhiibay Allah u safir waxaan rabaa inaan u dardaarmo hoggaanka cusub waxaan ugu dardaarmayaa raxmad ayaa ugu dardaarmaya dhimrin inuu u dhimriyo ummadda uu hoggaanku yahay inuu u naxariisto waa inuu u naqayaa role model tusaale fiican hoggaamiyaalka asiga ka dambayn doono waxaad ogsoontihiin walaalayaal quraanshada bahasha la yidhaah uunka ilaahay uu uuntay ama naflaha kuwa ugu yaray ka mid tahay fii ra'yi caybina indhahayna markii la fiirsho halbeegooda waxa ugu yar quraansho waa soo sida maaha quraansho ilaahay ka warrama wuxuu ilaahay yidhi وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده هجامية أيها قرآن شخص وحولها لا يا أمده وقان كوها محوية وحكا دافعا محوية وحكا نواجياه محيه وحاوي الشفقة والرحمة على أمته dhimrid iyo naxariis umadiisu u haayo oo wuxuu leeyahay ku xaraada guriyihiinna waxaa soo socdo jaysh iyo ciidan xoog loo Sulaymaan hogaaminayo insi iyo jinni iyo dabayl ka kooban sida darteed ay lacagta idin marinina ka xaraada ilaahay ku maamaahay walaha uu jeebkiisa ka keenan maahan macnaha aayadaas leeyahay ma ahan inay tahay matluwatun maqru'atun ala alsinatina fa hasab walaha carabka leeyahay ku akhrino كتبتنا وقرنا دوكسيد وتجينا بل هي توحي إلينا ونوحي وليسا ومحن وحي وليسا بالاقتداء بهذه النملة إن نقضى يمنا قرآن شدس أيضا وإنه قانك قلنا حريسته بلشدة أو قانك ومدك ودردارك يقوله دردارك لما وحيتها اختيار بطانة ذاتك أو لطليها كدقها أو دورنا مدحوين وكفي رسال لنا dadaad kow ku aragtay alla ka cabsi iyo u ahal naqasho waxaad kala tashaysid talada u dhiibo la tasho nabiga wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ma min ahadin tawalla min amri almuslimina shay'an illa walahu bidanatan qof muslimiinta taladeeda qabtay qofkaas wuxuu yeelahaa laba nooc oo la taliyaalka dadka kamid kan koowaad wuxuu yahay bidanatun ta'muruhu bil khayri وتحثه عليه وتعينه عليه وتذكره إذا نسي لتريه وناقة فرايو ugu kaalmayhaayo ku boorihaayo hadduu ka caajiso xasuusinaya hadduu imaamo oo dhahayo ya ra'iisa al-umma khayrkan baad ka ilduuftay waxaan ogaa hawshaa kaa badatay aslax allahu al-amiin ilaahay taladada ha wanaajiye khayrkan baad moogtahay khayrkan qabo la taliya ilaahay loo baahan yahay marka la taliyaha sayti hadduu asugu isu soo mutaxo qof qaadamaysa waxaa leenahay madaxweynaha ayay mas-uuliyadiisa tahay inuu doono dadka la taliyaalka ugu habboon ee ummadda maslaxadooda kala talin kara wuxuu nabiga leeyahay calayhi salaatu wasalaam waxaa jiro la taliyaal nooc kale oo la yidhaaho bidaanatun ta'muruhu bishar
لا طريق ما فرع شرطه وتعينه عليه وقوك المين أيضاها يحوق رب ربيا هذه بالكدول هذه بالبابيه وحوله نع وهكذا وتحثه عليه يدو حاجز كأرجع إنه الشرطة هرجدو أي كوب وريها يو أو وهو البمتق عنا وسمينا إنه الشرطة كذا عليه وتذكره إذا نسيها هدوك إلقوا فرح سوسها مركب وحنا إياك ثم إياك يا رئيسنا وقال كإنه مدحوينه إنه كلا يحو نوعاس كوا كميتك إلا تريالكم نذكر وعن ربا دردارا كي هو حيث مدنا مدحوينه العدل والإنصاف ومدى إلى يكون سناته ومدى إلى عدالة فشل هو هدو الله كوروي هاي وأوحى إلهي ونلصه برهدان بشرنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلهي عدالة وهنا فريق مدن مدحوين والله غاربا عدالة داس والله غاربا عدالة داس أيضا موعد معويه عدالة لا يمنع فيها في حيفك شريف ولا ييأس من عدلك ضعيف وعدالة وتاك تهدرا أو دليسا أو دلاتي سرون ترترهين أي كبوسني عدالة أي ضمع عيان أو إسلامه وكنكي حتى ينقل أحسنهين عدالة معاصر كارنا مدحوينه مرة منه كوا شرف ترى إيه سريو إيه أما حوا كسر مري أما حوا كسر مري أما وحكة كسر مري مقام أي نحلري أبيات وكذا نحلر كسر مري مرة من إيه شرفت وبكائر في سعداء أما يدمع كجران كواس إلى درت وضع عدالة الروس ميسو مدحوينه وكذا نكلم فردانا فيه وحوله مدن مدحوينه إلى الحوجي هيئات كأمنية أرجع الشاكتي أو ترتلاب تكوبات لبا سدحات إيه تنظم بيسي تنور رئيس الأمان كواي وأن كوجا أي سنة هاي وأنا كوجا تاجرينا وأنا كلنا هاي حكومة مقومة كرت إلا بالقوة إني أودها شواية سيدك سونت هاي نبي إلهي الشعيب لله قبله سمركي موسى حيتي يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين سلامتي وحاول أبو نكان وأن أبقى يوم ولا كواحد نو إجارة هوش نقولي لماذا لما خصله أما لبصفه مهم وهو شطيف في كواحد معي هاي القوة والأمانة هذه هو الغوانا أن قوى الله إمام عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وخليفة رسول الله رضي الله عنه وأرضاه أي أوليه لا ينفع النطق بالحق لا نفاذ فيه حق لا يسقط نواقه أو لا يسقط شيء أو تبرر يتاك الله واحترم مايه إذا وحن كلنا مدحوينه هي لها أمن وحوق ويا الحوجي سي توعد أين أضمع وعليه مدحوينه دارن كي كلو حوجي كسب قلوبته موادين الصومالية كسبه صفة كسبه حميدة كمان كسبه لو بقى كسبه قلوبته الصومالية موادين الصومالية قلبي جيسا وأنفرين سنة هاي قلوبته ويكلا أبادي كسبه مدحوينه كسبه مالين كي وحده يفرطه waxaan rabaa inaan ku maamaho aabahay sheekh Muxudiic raxmatullaahi calayhi waru dhihi jiray dad ninka rabay oo hogaamiyo wuxuu shaw xaaka kama dhaman wuxuu dhihi jiray dadka qadood mas'ala diiniga ku imaanaya wuxuu ka rabay qaala fulaan xadiid fulaan mas'ala fulaan saasay muraad kala kaamala waxa laga rabaa wari mas'alihiisu oofi deeqsi sabka uu ku leeyahay balaha afadka uga oofi koo kale wuxuu yiri waxa saxaabadkuma yaqaan wuxuu rabay awli مرتي يا ما هذا الكمانتو مانتو وحالي أو هلا وحال غيرها وعلى الخاص بدر سيسو ومانتو ليسو حجمة المرتي الصومالي بشر كيس بلشدو كميديا هيوارا كلام غير هل كانوا وعوري كان رباوي هل كان إن حضوا على كورويا مركو كوت يمالو قاعد إلى على كسلان وعبري هدي له سلام هي قاعد كل جدار وبري معنى قلبي يسمع لو ولده كاسنا قاعد يبرد كسلان
ساسو بي جلدوها والدي رحمة الله عليه وعلى غيره من الصالحين وعاو كانوا يدفع قبل الدرجة الرمانوي مركي كوي مادين فرق الله وقع مركي كوي مادين أرواس لها إمام لها وعلى الرمانوي إلا درجة فرقوا وقع سوداوي هذا مركان كلها سدا قلوب ما كسبكت إلا بهذه الخصال تلماما هنا ليش بكرة سكتها وعاو كانوا بيجري قد قبل ما يوري يعلى سكتة ضهور درجة ما يدانين وحدة ما يدانين ما يدانين هذول ما أنتوا مرتي هذا الماما ما يدانين ما يدانين هذول وحي يدانين كريه يوري يعلى دانين سيد على شباب وكان أبكي متى بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا مركا وركيga wuxuu yahay mudane madaxweyne haday maslaxada Soomaaliyeed iyo danteed ay kula gasho inaad jeerkaaga wax ka dhigto هذا كورا شاعر وعول ويل يا وحدرة إيه أنت ويسأل كيرو نلوعي ولينا نخلي لما والحد ويل ويل يا وحدرة إيه أنت ويسأل كيرو نلوعي ولينا نخلي لما والحد ويل نلوح هايستو وحورنا هاي أو نو ديني هي كوا ويون قليل أو أيو ديلو marka waxaan leeyahay hadii ay maslaxadu gasho in wax la diibanadii madaxweyne intaas waxay ahayd dardaaranka madaxweynaha waxaan rabaa inaan ugu duceeyo madaxweynaha oo ilaahu اللهم اجعل أول عهده صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا إلهي كي الله فقان كيسا بالله كيسا كبرى كيسا الله أول ناسا الله كي دحات كيسا كو أو حدو الله كورون الليلان الله كي آخر كيسا كو نجاح الله كي مدحويني هنا وحكالله يا مرد مدحويني هنا ما أنت ومدى الصوماليات حق بدن أو كلية الله كحقوق أو كلية سدحة أو مهم سدح وعيكا كو أو كلية هي أيوهم بليان هون دارنا مدن الشريف أحمد حنبليو وقلتي إلي هدو الله كورويا يقدو عيان وكلية إلي كو أمانان وكلية سيدنا وحالا هذا هوغانكو إخباري إدبار وليه وعوليه إماشو يجيس وليه مدن الشريف شيخ أحمد هوغانكو مركو ويمني إنه رحبها وسودوي وأحسن ترحيبها سودوي في دماغ ولكن فلما تولت وأدبرت مركي جيسة ودعها فأجاد توديعها وسجوتي سبع عنه سجوتي وأمر المضونته حكما المركة إن الله غدر شربتيسة حدانا إنان أمان وأروهم بليين وندعين لك هلي إنان شربتيسة ما ودع نحاروات وعلينا لقد استطاع هذا الرجل بحكمته ورؤيته للحياة إنقاذ هذه الأمة شيخ شريف وحو أودو يا شيء إلهي مركو وفجيي دبدل حكمة ديسة يأركتنا ومباشرة قبل سابق هذا أيوه وحو أودو يا لي ومدلو بقال حير كمان تأي جوكتنا وقيس وبطل وأهليي أصوات قالوا ما أيوه مصلحتي وحو قارقي إن ولا هذا الكو أو كميديا هي وسائل الله استعمالي كرب اللي هو قالوا لا يلا ولا هذا أقبلي وحو أقبلي إن أمدان حق للعديد وهركان يكون الباري إلا باللوبه إن أسد لي واحد بدنا وصوم مري وعلينا إن مدنا مدح وين الشيخ شريف هو عرب قبلي سنة الله كان له بالوحوري ما ضر شمس الضحى في الأفق طالعة الله يرى ضوءها من ليس ذا بصر على عيد وهذي صبح ويبناك تمارو
hadduu arki waayo qof lariira ama camoola ah qoraxda inuu indhoola arki waayey nuurkeeda naqsaamin mayso oo sidaa ma ah sheekh shariif ilaahay ayaa kuu og ummaddaa kuu og inta wax garadaa kuu og wanaag baad ummad u samaysay allah kaaga shukriyo ummadda soomaaliyeedna waxaan leen mariya waxaan idiin sheegayaa gabdhuhu soomaaliyeed eladkooda waxay ahaayeen haddana yihiin ahaana doonaan markii ay dhibaato ummadda gasho halka ummadda looga baxshay gabdhaha ahaayeen kaliya hadday abaar galaan hadday colaad galaan hadday karays walba oo humanity soo qaabili kara insaaniyada karays kastoo soo mara gabdhaha soomaaliyeed ayaa makhraj u ahaa jira حتى النبي محمد عليه الصلاة والسلام في بداية رسالته رسول مدينة بالله وغيره ويكون حسبه ملجأ أو صور ضهايا مرجع عيسى وصوم عين بداية إيه أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها خديجة مركا مركا سومالينا ما لقي قانا أو علي كله مركا حركة للدوما حديث غيره سوماليا استقطان أري وحاجري جلال إلى قضبرين قضيالك رواية داني هو هاجر وعي هايين سفارة أي قبيلة استفسارها أو وعد يبلغ ليسول جلاي هذه استريري هل يجلو يوضع يالكول يجبده دي إنتي الذي بقى عندك الرسي هاي الله ناس لقى صوب السنة واحد كلامه وهي هذه جارنتي أيه وهي هذه إنشورنسية واي مركان مديرنا ما أنت مركان حلقة إيه كنا ذا marka waxaan leeyahay arrintaa dib loogu laabto aniga wadaadadan ka mid ahay masaladaas raabteeda hadda wuxuu galayaa isaan isleeyahay kow waxa ay ka yihiin wadaadada aniga wadaadaan ahay waxaan leeyahay arrintaas diinta shuqul kuma laha bari ka tahay intaas waa yani kalimaadka anugu tala galay inaan mataqaan ka ilaah munaasabada waxaan kusoo gabagabeeyaa mudane madaxweyne tixdan gawgaan kuu tiriyaa hooyaday xaaji xaliim si cabdi markay xasil darriga aragtay tiri waxay dhihi jirtay nin baa ratigiisa u gabiyey ratiga marka carraa waayo waxay u socdaan miigii u laabanaya macnaa ama baadiyihii marka ratiga waa loo gabiyaa ama geel waa loo gabiyaa geel jirbihi laakiin hal geel jaraado malkeeya maray marka wuxuu leeyahay dhulka taakataakey taakaba mar soo gooy mihi waa tegaynaa safarkan sir lagu wadiyo iyo suus khiyaanaha inuu samatagaa badan marka mudane madaxweyne waxaan ku leeyahay tartiibkaaga التبصر والأناء ينقول دارما حسل يمير طبعا قول دارما يا إلهي نهك وافجي سنة ونهكسن وعد والله يا أوي وعد والله يا أوي ومن أحدح وين وحنوا وحدوا الدان كولا ودنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير الجزاء. شيخنا الشيخ عبد الرحمن إلهي كهبل سي حسوسين تدردارا كي برناشد أمة الصومالية وكبرناشد عالم الصومالية يمين ماذا أمة مركز صعب مدينة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه صومالي انا وراتو حتى تهجوكو ادنكم اجر غير بدن الله ينسيو انا وحنا ملينا كلنا
markii la xisaabay dhalinta waxaa la yidhahdaa odaga maaragtay dhalinta isaga u dhalin weyne meesha lasoo fadhiisiiyo oday cabaarayo ku cabaaray yurub ku cabaarayo oo maaragtay dhibaato iska qabo cawo iyo maalin fakirkiisu si kale yaana waanahay markii maxaa la yidhahdaa inaan wax wanaaga ka hadlo aan doonayo meel kaleeto ila leexanaysoo fara badanaa jirta waxaan idiin sheegayaa aniga habeen hore waxaan isdacweynay labadayda gacmoodaan dacweeyey waxaana ku dacweeyay ilaahay abuuray 1943 saca bilaabeen maantana waxa la joogo waa gara kartiin intaas saca baan ku jiray dowlad soomaaliyeed u sabcinayay calankaasaan u sabcinayay 6 saac oo habeennimo ayaa calankii soomaaliyeed dhashaan bursay mahal la yidhaahdo oo qoriga leesaan loo taagayaan u qabtay intaasoo kun calanka inta loo gabiyayo dhamoo la gabiyayo wax laga sheegayo calanka la ammaanayo dhan intaasoo dhan waa hortaagnay calankaan hortaagnay calankii sidaas ayaan waxaan ku soo gaaray anigoo yurub jooga oo sanadkayguna gaaray meesha ugu dambaysay inaan aqalkayga markaan fadhiyo iyo markaan banaanada maraaba inta calankaygu soo dhaco oo in meel la fadhiisto dad yaw soomaaliyeed ummad yahay soomaaliyeed oday waa duceeyaa ducadiisana ilaahay aqbalo waxa waaye wuxuu u ducaynayaa waa waxa u dhalayo wixii la dhashayo dalkiisa iyo dadkiisa u dacweynay oo u ducaynaya waana ilaahayna waa ka aqbalaya maxaa yeelay waaye araga wuxuu ku yahay noloshu waxa ay too waayana ku yahay waxaan rabaa 4 waxyaabood aan rabaa inaan soo qaato 20 sano dhacay 22 sano miya maahan waxay tahay 20 sano waxaa jiray raalliga hadda dhulta ay xiran marka waa sii riixaya afar waxyaabood maxaa la yidhaahdaa la kowsatay 22 sano la joogay ayaan rabaa inaan wax ka sheego afartii waxyaabood waxna waa sii dhammaanayaan waxna waa soo korayaan afartaas waayi dowlad soomaaliyeed waxa laga raadi jiray meelahaasaa la marmari jiray dad meel iska wareegayo soomaali midabka ka ah laakiin aan maalinta qalbiga soomaali ka ahayn aan la wadi jiray meelaa la geey jiray afartaas waxay ka koobneed nin waa qarandoon qaran uu raadinaya waa ku jiraa afartaasuu ku jiraa ninna waa qadadoon ninna waa qabiildoon ninna waa qaraxdoon afartii israaci jirto dibadda isu raaci jirto kambala ma tegayo jabuuti ma tegayo meelab la tegayo xagga tegayo waxaan tegay hadda waxa soo iftiinaya oo aan iftiin u aragnaa waa hal mido waayo waxaad u moodaa ninkii qaladoonka ahay inuu sii socdo ninkii qabiildoonka ahayna inuu sii socdo laba nimaa isku soo hartay marka waxaa isku soo haray qarandoon iyo qaraxdoon adeerayaalow gacaliyaalow waxaan idinka codsanayaa haddii inaad si fiican wax u maqashiin haddaad raacdiin qarandoon oo idinka dhab tahay oo aad saas dhab aad ugu hadashiin waad koraysiin wax wanaagsanaana soo baxaya haddaad inta ka jeesatiin taageero qaraxdoon noqotiinna qaraxu adinkooda ku dhacaya Let's go.
jiray qaraddoonka ahaa jiray markii la arkay raggaas sidaas yeelaya markii la arkay waxgaradkii soomaaliyeed oo ummadda soomaaliyeed ee wejigooda ahay dadkii maaragta madaxda soomaaliyeed ahay qabiiladii ugaasyadii dadkii waxgaradka ahay ayaa la xulay waa la soo xulay waa loo yeeray waa la keenay markii la keenay waxaa la yidhahday soomaali ka taliya tuuggan wareegayo meelaha wareegaya iyo marka dadkaan da wax ka qabta raggii ragahay way shaqeeyeen madaxdii waa shaqaysay soomaaliyeed way shaqeeyeen waxay ka shaqeeyeen arrintaas waxay soo diyaariyeen baarlamaan sharaftiisu dhan tahay ninka hogaaminaya iyo baarlamaanka laftiisana diyaar u ah inay maaragta dalka soomaaliya dhibaato ka bixiyaan nin aan wada garanayno u wada jeedno oo wada aragno oo hadda maaragtay codkiisu la deeqay oo nin muslim ah oo aqoonyahan ah walaalkeenna ah waalidkeenna ah wax walba ah baarlamaankii madax u noqday ninkaas markii la helay oo soomaaliya ninkaas gacanta ku dhigtay iyo baarlamaan aan meelaha laga soo wadin oo waxgaradkii soomaaliyeed soo xulay iftiinaa soo baxay iftiinkii soo baxay yaa kordhiyay haddana yaa sii bilay haddana yaa korgeeyay baarlamaankii caynkaasa inta isku noqday ayaa wuxuu soo doortay xilligii soomaali ku jira waxaa in urursanoodii diyaar waa dadkaasoo diyaaradiinoo dhibkaydinaysto ama gudihiisu ku hesta ama dibaddeedu ku hesta dadka inay maaragtay u dilaala raba dadkaasaa soo baxay waxaan arki jiray oo yuutuboori ku arki jiray safaarado soomaali ah oo intaasoo kun ka badan oo dad soomaaliyeed ah oo nin walbaba jees oo u yahay safaarad u yahay oo haddii jeeskaa laga hadlo u dhunta ku qabsanayo iyadoo raggaa la soo xulay la helay oo dowladnimada la helay oo sharafti la helay ninka inta iloobay sharaftaas iloobay maxaa la yidhahdaa qabiil difaacayow wejigaaga naga qari allah hadda wala yahay waxaan u mahad celinayaa walaalkay diini oo barnaamijka qaybtiisa hore xiriirinta ka ahay waxaad u maraysaa inay barnaamijyada noo dhiman aad u fara badan yihiin waqtigana uu aada u gaaban yahay waxaan isku dayaynaa inaan waqtiga soo koobkoobno waxaa noo jooga fanaaniin aada u qaali ah oo magaalada Yatboori caanka ah waxaa noo jooga cali najiib saadaq sayga iyo weliba saciid santos oo ah dj-gooda barnaamijyada cajaladaha u kala bedela waxaa kaloo jooga abwaan khaliif faarax xayir oo ah abwaan da-yar oo ku nool magaalada Yatboori oo aniga aan ku xasuustay heestii calanka soomaaliya ee kontoniko guuradii uu u sameeyey ee ay qaadeen kooxda qayladaan ee caanka ka ah waddankaas UK iyo dhammaan soomaalida ma rabo inaan hadalka kusii fogaado kulligiin waxaan idin leeyahay hambalyo dowladda cusub iyo rajada cusub ee annaga dhammaanteen aan wada qabno markan waxaan soo dhawaynayaa fanaaniinta reer Yatboori ee noo qaadi doona ka tashada cadaawaha iyo weliba heestoodii qaaligeed iyo wadaniyada soo dhawaada hagaag daawadayaal heestaasi waxay guniya gabagababa u ahayd barnaamijkeeni caawa oo inoo soo bilowday saacadu marka ay ahayd 8 ilaa iyo 9 fiidnimo intaan dib dambe hawada ugu kulmi doono waa kaamiradii iyo waliba farsamadii Xuseen Cabdi Calasow tabintii anigoo ah Anfac Umar Caddo inta aan dib dambe ugu kulmi doono isbuuca dambe hadduu Allah awood leh ogolaado sidaas iyo
nabadgelyo. Dalkaygo